madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay dalalka quwadaha waaweyn ee dunida inay gacan ku siiyaan sidii dib loogu furi lahaa marinka Hormuz oo ay xirtay dawladda Iran xilli dagaalka bariga dhexe uu galay maalintii 17aad. Trump ayaa ugu baaqay dalalka raba inay ka faa'iideystaan masiibadan ay sababta u ahayd Tehran in looga baahan yahay inay dagaalka ku biiraan si loo furo marinkan oo ay maraan 5 meelood meel ka mid ah maraakiibta sida saliidda iyo gaaska cayriin ee u socdaalaya dunida. waxa kale oo madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in uu baaq u diray dalal dhowr ah si loo sameeyo isbahaysi ka dhan ah Iran, waxaana uu sheegay isbahaysigan in ay furi doonaan marinka Hormuz. Trump ayaa ugu dambeyn sheegay in mar kale ay weerari doonaan jasiiradda Kharaaq ee ku taala gacanka Bershiya, halkaas oo la xaqiijiyay in laga dhoofiyo inta badan saliidda Iran taala, isagoo intaa ku daray howlgallada military ee Mareykanka uu ka wado dalkaasi Iran inay u socdaan sidii la rabay. dalalka sida weyn uu soo hadal qaaday madaxweyne Donald Trump waxa ka mid ah dalka Shiinaha oo uu ka codsaday inay ka caawiyaan dib u furista marinbiyoodka Hormuz. Trump ayaa sheegay in Shiinuhu uu gacan ka geysan karo dib u furista marinka Hormuz, waayo wuxuu yiri 90% saliidda uu rabo halkaas ay ka timaada. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sida ay qortay wakaaladda wararka dalkaasi ee Xinhua waxay sheegtay in Shiinuhu uu la xiriirayo dhammaan dhinacyada ay qusayso arrintan si xaaladda loo dejiyo, iyadoo intaa ku dartay inay ka go'an tahay Beijing inay hoos u dhigto xiisadda gobolka. si kastaba ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa ay sheegeen haddii mar kale la beegsado jasiiradda Kharaaq ee laga dhoofiyo saliidda Iran in laga yaabo in ay sare u qaado qiimaha tamarta adduunka. Iran ayaa weli ku adkaysanaysa in ay sii xirnaan doonaan marinbiyoodka Hormuz. dhinaca kale Iran ayaa ku dhawaaqday duqeymo cusub oo ay ka fulisay dalalka Khaliijka, waxaana dalalkan mar kale ay cambaareeyeen falalkaasi Iran ay ku weerarayso wadamada Khaliijka. ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ayaa khadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudiga Amir Faisal bin Farhan, waxaana ay ka wada hadleen sidii loo joojin lahaa weerarada Iran ay ka wado dalalka Khaliijka.
هذه ليست مجرد مضخة نفط، إنها خط تماس جديد في معركة الطاقة العالمية. تربك الحروب والأزمات الإمدادات وترفع الأسعار إلى مستويات تهدد اقتصادات الدول. بقرار من طهران عجلت المواجهة بين واشنطن وتل أبيب وإيران بإغلاق مؤقت لمضيق هرمز الذي يعتبر العقدة الجغرافية والاقتصادية الأبرز، ليدخل ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية دائرة الخطر. في مثل هذه اللحظات الحرجة تلجأ الدول إلى ما يعرف بالاحتياطات الاستراتيجية من النفط، وهي مخزونات طوارئ أنشئت أساساً بعد صدمة عام 1973 النفطية، حين أدركت الدول الصناعية هشاشة اعتمادها على قرارات منظمة أوبك وتقلبات السوق. ومنذ ذاك الحين فرضت وكالة الطاقة الدولية على أعضائها الاحتفاظ بمخزون يعادل 90 يوماً من صافي الواردات. وهنا الهدف واضح: ضمان استمرار الإمدادات عند اندلاع الحروب أو تعطل طرق الشحن، أو حتى عند فرض عقوبات واسعة. تملك الولايات المتحدة أكبر احتياطي استراتيجي في العالم يتجاوز 560 مليون برميل، يتم تخزينها في كهوف ملحية بولايات تكساس ولويزيانا. أما فرنسا فتحتفظ بنحو 18 مليون طن توزعها على قرابة 100 موقع، بينها منشآت تحت الأرض جنوب البلاد، وهي مرتبطة بشبكات أوروبية كبرى. لتهدئة الأسواق دون كبح الأسعار مباشرة، استخدمت مخزونات النفط في أوقات مفصلية خلال حرب الخليج الأولى، وبعد إعصار كاترينا، وإبان الأزمة الليبية، ومؤخرا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حين قررت دول وكالة الطاقة الدولية الإفراج جماعيا عن ملايين البراميل، وتحولت عمليا إلى أداة سياسية واقتصادية تبعث كما يبدو برسائل الطمأنة أو الضغط بحسب السياق. تدخل فيها الاحتياطات الاستراتيجية من النفط كلاعب بديل في معركة الطاقة، بوصفها خط الدفاع الأخير أمام الصدمات.